ahayd hawshii iyo khasaarihii iyo dhibtii halkaa ka dhacay lagu xisaabiyo runtii horta cidda geysatay way caddahay cidda geysatay way caddahay afraadu ma baahan colaad ka curatay gobolada dhexdooda dadka qabaylka degan ee reer Soomaaliland ciisiga gadbursi lahayna ma jirto dadka mid kale waxay isweydiinayaan gareeqaan 24 saacadood gudahood baa boorme intaasoo calan lagaga taagay ka Soomaaliland ahayn rinjiga la mariyay mashruucaasi ma la oran karaa mid muddo soo socday buu ahaa maadaama dhalinyartii tihiin hawsha maxaa kala socotaa waxa dariiq kasta ku xidhan CCTV camera falkii halkaa ka dhacay xukuumaddu dad duuduba iyadoo ku qaadatay joogta boorame isna waradan ay dawladdu sheegtay ma jira haga saamiga maxaad ka oran lahayd halkee waxa laga bedelo mas'uuliyadda xilka haya waxaad leedahay waxaad sheegtay in ay iyagu ka gaabiyeen haga saamiga maxaad oran lahayd xukuumadda dadka ka soo duulay dalka Itoobiya reer Soomaaliland ma buuq isla joojiyada buuq ciisa only ma jabhadahu baysan ba ka soo galay dalka xagga Itoobiya oo warkoogana ka cadeeyay diriraba ka dhexda loo galayna ma taqaanaa badi dadka shacabka leeyahay haayeen waligeed ma dhicin in loogu kala abtiriyo khadaro goboladaasi dagaaladii ka socday haday hawlgelintii tahay haday talisyadii yihiin waa arinta aanu ka doonayno guddiga madaxweynuhu magacaabay in sharciga la horkeeno runtii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسر دوادا ورئيسان الله يلون دونه قريقان مختار طاهر جبريل أو قدوم كحجان كورك قرينا السومال لنا هره قريقانكم دويكو قدوم بيوحو كشقيني الحالات دي كتاجني دول كهذا الجرهان مجالد بورمه أو كم إذا هذا نيرتي هالكاسي دتشيني سي قعنت كوه سي إسلام الكاسين كشقيني سي حالات دو عاد وصل لغته وحنو كم إذا هذا قريقانكو هرمود وها دتك كوجوليستين حالته ay caadi ku soo noqoto isla markaasina hay'adaha ammaanka iyo dawladda iyo systemkeeda dib u soo celiyay gareeqaanka bal waxaan weydiinayaa xaaladii way degtay nabadeyntii halkay marayso gudidii waan madaxweynuhuna guddi heer qaran uu saaray gudidaas maxay hawshaasi u gali kartaa maadaama wax badan ku ogaay xog badan oo ka hayo gareeqa waan ku soo dhaweynayaa marka hore bal horta magaaladii boorame iyo hawlaheedii ka war qadar wad maasan tahay kulley warkaama qarsoono wixii ka dhacay gobolka Awdal indhow wad la socoteen xaaladda gobolka Awdal ilaahba ma hadle nagu asturay anagoo dhalinyartii iyo hogaankii dhaqanka inaanu gacanta dawladda dib ugu soo celino waxaad kala la socotaa gobolkaasina gobol fallaxun ka dhaceen oo shacabka ciidanka ay kula kaceen oo runtii xaalad hadda wali taagan wax ka qabashadeedu sa gobolka hadda guud ahaan nabadgelyadiisu way soo noqotay inkastoo xaalado khatar ah oo taagan oo ka hortag u baahan ay taagan yihiin maanta marka kulli wad la socotaa de madaxweynaha waa ku soo dhaweynaa horta laba arrimoodba waa mid go'aankii ma taqaanaay oo kaga noqday arintii khasaarahan badan keentay oo ku soo dhaweynaa inuu madaxweynaha is adkeeyo oo noqon sidii muuse oo annagu ayawda la goodo waa sababta dadka reer Awdal iyaguna la xajaalada u muujiyeen kadib markii madaxdii xukuumadda iyo ma taqaanaay hay'adaha amniyaadku oo gobolka gacantiisa ka baxay ay dadweynuhu iyagu iskood gacantooda ugu soo celiyeen khadrow mid kalena waa ku amaanan yahay madaxweynuhu soo jeedintaan soo jeedinay ahayd guddi baadha gobol falladii gobolka ka dhacay iyadan waan ugu mahad celinaynaa horta waan soo dhaweynaynaa waxaan rajaynaynaa in guddida la magacaabay ay gun ugu dhaadhacaan xaaladda gobolka Awdal ma baahna dulka xaadin maanta qadarow guddida madaxweynuhu magacaabay waa guddi aad u badan xildhibaanaha ku jira wasiirada ku jira sheekh albaladkii magaalada ku jira bal ka waran guddidaasi hawshaasay wax uga qaban karaan halkeed maanta ku oran lahaa aad oran lahayd aad u tilmaami lahayd halkaas ka gala hawsha horta khadar guddidu way badan tahay rag badan oo way arag way badan soo joogana waa ku jiraan walow dareenka dadka reer Awdal ay muujinayaan in dad kale oo iyaguna haboonayo xogogaal xaaladahan u ahaana in lagu soo daro haddana haddii ay u hagar baxaan waxaan qabaa in xaalado huursanaa oo gobolkan hore u jiray iyo kuwa haatan taaganba ay yihiin dad go'aan ka gaari kara وحدي أي جاران تدك حقائق الأبطأ قبل كان كجوان جاري
xaalad baa meesha ka dhacday dhimasho iyo dhaawac sababtay adiguna goob joog baad u ahay arrintaas anigu caadi bay ku soo noqotay imkana waxaa aad looga cabanaya ama aad looga dayrinaya in hawshaasi ay ku sii fido dhinacii saylac oo dagaal beeleed isku bedesho arrintaa ka waran sidee lagu hortegi karaa horta khatartan muddaysa soo biirsanaysay horena khadar waa inay arrimahani soo socdaan horaan uga hadlay iyadoona rabshadaani dhicin oo talooyinan madaxweynaha u soo jeediyay ka mid ahay waa khatartan kuu sheegayo qarsoon indhaha laga qarsan karin gobolku hadda waa miinaysan yahay ka hortagna waa u baahan yahay laba qadiyadoodba haddayna xukuumaddu aynu go-aan ka qaadan khatar bay ku keenaysaa dadka reer awdal waxay ka mid ahaayeen dadka reer somalilan ciidamada ugu badan ay kaga dhimanayeen mataqaanaa gobollada bariga somalilan dagaalada dalka 30 sano u dambeeyna waxaa laga soo duulayay dalka dhinaca bariga somalilan weligeed ma dhicin in loogu kala abtiriyo khadarow gobolladaasi dagaaladii ka socday inay laba qabiilood is haysta yihiin laakiin waxaa loo arkayay mataqaanaa dad qaranka amnigiisa liddi ku ah balse qadiyadan maanta waxaa muuqata inay ka marna haboodo xagga dawladda aan u soo jeedinayno inay dib u socdo sida xalay baa wasiirka arrimaha gudaha qoraalka ku soo saaray uu waafajiyo dadka ka soo duulay dalka Itoobiya reer Somaliland ma colaad ka curatay gobolada dhexdooda dadka qabiilka degan ee reer Somaliland ciisiga gudbursi lahayna ma jirto dawladda waxa u taala siday uga hortagto taandhada laga soo riixay Djibouti iyo taandhada laga soo riixay Diridhaba labada haddii ka hortagto hal arinta way ka gaari kartaa buuqa ciise only maaha jabhadahu bay sanba ka soo galay dalka xagga Itoobiya oo warkoogana ka cadeeyay Diridhaba wara khatar amni in qolo laga dhiga maaha qalabna way ahayd xukuumaddu inay u aragto gobolka laba qabiil oo haysta buuqa ciise salka kuma hayso horta xeerka ciise hadduu buugta la mid yahay hargeysa sanad walba intaasoo buuq bandhignaa maxaa ka bedelay waxa ka bedelay arrimo badan oo halkaan khadar ku soo koobi karin oo xasaasi oo qaarkood hore u taabtay baa jira khadar buugaasi waxa maalgeliyay horta dalka Djibouti xeer ciise la yiraahdaa xeer ciise waxa ku jira marka laga yimaado dhaqanka ay tilmaamayaan dhulku sheegasha ku jirta wana halka dhibtu ka timid dadkaasi arrinta ay diideen waxa weeye buugay ku qoran tahay dhulkan aniga ah oo dadkii lahaana ay degan yihiin in dadkii deganaa marag looga dhigo waa mid keentay masiibadan baahsan ee khatarta gelisay qaranka arrinta weeyaan arrinta mataqaanaa buugana uu dheer yahay ee mushkilada abuurto wana mid wadanada jaarku ay dabada ka riixayaan siyaasado kale oo inta ka weyn khadaro dabada ku haya guddi badan madaxweynuhu saaray guddidaasi maxaad isleedahay arrintaa way ka qaban karaan si aanay markale khasaaro u dhicin dadkii naga dhintay dad kale aanay noogaga dhiman sidee hawshaa u qaban kartaa masla horta madaxweynuhu go'aan buu ka gaadhayba iminka hadda kama dambaysa arrinkaas oo iyadu ka hadal ma laha hadda guddida waxa u taalo waa xalinta wixii ka dhacay xasuuqii halkaasi ka dhacay xalinta jabhadaha faraha badan ee maanta hubaysan sida xal nabadeed gobolka ugu soo celin lahayd beelahaasi isu juubayaan wali iskaadina ay ugu kala dabaali lahayd qolana dalkooda dalka xuduudiisana u xiri lahayd inta gudahana u nabadeyn lahayd baa u taalo guddida waxa kale oo yaala guddidaasi xaalad tabasho ah oo xilligeedii maanta taagan baa taagan oo dadka reer Awdal in badan ay tabayeen arrintaana waxaan rajaynaynaa inay wax ka qaban doonaan madaxweynuhuna arrin ay tahay maanta oo liga sida u galaysa mar haddii dadka reer Awdal gobolkaas oo gacanta ka baxay dadka rayidka ee gacanta dawladda ku soo celiyay taasoo alla jeclada ay Somaliland ay ka leeyihiin ay muujinayso dadkii aan ahayn shaqaalihii dawladda iyo xukuumaddii dalkan u doortay midna aan ahayn ay gacanta ku soo celiyeen waxay muujinaysaa say dalkan iyaga ay uga go'tay inay u ilaashadaan iyo deegaankooda iyo wada jirka ummadda reer Somaliland xukuumaddu san ay sheegtay way qaadatay wixii khasaaray halka ka dhacay ma la oran karaa arrintu imika caadi bay ku soo noqonaysaa iyo xaaladii boorame caadi bay noqonaysaa horta dadweynaha inta indhergaradkii ee hawshan ka wada shaqeynay waa inta keentay inay intan dib u soo noqoto laakiin waxa jira qaybo kale oo qarsoon oo wali mataqaana khatartooda ay yar tahay say ka hortagay wax ka qabasho u baahan
كل سياسة دولة الصومالية نك فقه لها ودركتان في لها وهذا المغشان عن شيء كنت تقول طبعا سياسة الشيء كل وقبل كأمن جيسة خطر قليل اللي في هذا وكدونا كون درينك متقناي بوق عيسون جدنا ويجونوا باهن إن هصليجو أخرمها سي وأخرمها كدون ديد ماذا بوق عيسى اللي في dadku mid kale waxa isweydiinayaan qariiqan 24 saacadood gudahood baa boorme inta soo calan laga taagay ka Soomaaliland ahayn rinjiga la mariyay mashruucaasi ma la oran karaa mid muddo soo socday buu ahaa maadaama dhalinyartii tihiin hawsha maxaa kala socotaa horto arrin cusub ma khadro arrimahaas waa iska soo noqnoqdaan siyaasadda Soomaaliyana waxaad ogtiin kulli inay mar walba raadiso wax u dhimaya wadajirka reer Somaliland in siyaasiyiin si bareer uga soo hadlaa mataqaanaa ay jiraan wala darkiisa wasiirka la ilaa inuu maaltii dhaweed yiri reer Boorama ma ahayn inay magaalada ay qabsadeen dib ugu celiyeen dawladda taasi waxay muujinaysaa faragelinta tooska ay ku jirta cidii doona la adeegsaday wana arrin u baahan mataqaanaa arrin ka dhalatay xoogagaal darrada xukuumaddu dadka ay ka xulatay gobolka Awdal oo looga dhinac walba looga faa'iideystay ودي صوب حتى إن الدكتور خير وضلي يدك مثلي كمثلا جابيه بعد طبعا سنة كاي شوين وحصة ما ينقبل كاكم الهاي وأنا كوا صوبت وين كله حالة بين فراك بعض أو حقيقة وكالة ترجمة كروي حكومة مدحوني هي حل كوم مقع يدك مثلي مد صح خطرت أنا قايب كاهين وقت يا الله هاي تخوش يا خسارة هي نبتها كاكد عائلة ولا حساب كنت ورت عدة جيسته وعده عدة جيسته وعدها أفراد مباح ولو هذا الحوار حكومة تكسر بحياة ضدك أيوة جدودين أو سنايبر سكراء يكون شاقين أرنت أروح بك بتشري بك واحد ضرك ورمر بخضر وجاري واحد ضرك يستكون على CCTV في كاميرا فرق هالك كدعي حكومة ضم يضوب يضوبك وقالت سيد ضوبك وقالت يدو هذا الدنيا لحل كذي إني جادو أنا لك هي ضدك جوز فلذا جيستي isbitaalada khadar oo dadka lagu leeyahay waa joogtay boorame isna waradan ay dawladdu sheegtay ma jira khadar maalin aanu kama dhex bixin inta xaaladaas taagneed iyadoo ma taqaanaay aan goob kasta joognay arrinta waxba kama jirin gidood ciidamada ka dhashay maalmaha kamid oo waliba maalintii u dambeysay oo shifto dariiqa u gashay ay horta dhimashada u badan dhacday ciidanka dhexda loo galayna ma taqaanaa badi dadka shacabka la yibay haayeen طبعا qaab argosay ciidankaasi ay dib ugu noqdeen dadka saraakiishii arrimaha maamushay ama diihiin abaanduulayaashii haday howlgeliintii tahay haday talisyadii yihiin waa arrinta aanu ka doonayno guddiga madaxweynuhu magacaabay in sharciga la horkeeno runtii cidii hawsha geysatay cidna sharciga kama sareyso dadka reer Awdal waka iyaga oo dilan oo mataqaana dadkoodii la dhibaateeyay haddana dareenku na siiyay inaanan hanaanka amniga dalka oo gacanta ka bixin ay iyagu gacanta dib ugu soo celiyeen wadalkiisa salaatintii dhaqanka oo dib ugu wareejinaysa goobihii saldhigyada ka waxaad arkaysaa oo kantarooladii dalka aan rayd baan dawladda noo shaqeeyo sharaf ma qaato aniga in badan oo ila aragtay waxaan ka shaqeynaynay inaan dib dawladda uga barino hadda waa ku dadka laayay taas waxa muhiimsan dal jacaylka dawladana waxa saaran dadkii dambiga geysay inay horkeento sharciga saamiga soo qaad xaga saamiga maxaad ka oran lahayd halkee waxa laga bedelo mas'uuliyadda xilka haya waxaad leedahay waxaad sheegtay in ay iyagu ka gaabiyeen xaga saamiga maxaad oran lahayd xukuumadda horta saamigu waa muddo wax soo jeeditamayay hadday dadkaasi soo jeediyaan dastuur furis iyo siyaasadda hanaanka wax loo qabsaday in wax laga bedelo labadaba waa arrin soo jeeditamaysa saamigu waa arrinta iyo saluug badan maanta reer Soomaaliland laba reer umbaan ku soo hadnay labada reer ee difaacanaya umbaan ku soo hadnay siyaasaduna qaab dhismeedka dawladda xilana wali waa qaabkii hore wayna siyaasadda saamigu ka bilaanta saddexda hay'adood dalka u sareeya ee qaranka oo khadar oo aanu aragnada inay ku isku raacsan kuma jirno saddex madaxweyne kuma jiro saddexda hay'adood dalka u kala sareeya saddexda hay'adood dalka u sareeya waa madaxweynaha gudoomiyaha golaha guurtida gudoomiyaha xakamta sare haddaad tiraas ayaa u sareeya madaxweynuhu ma soo galo madaxweynuhu waxaad leedahay saami ma saami